markaana sababta u ahayd geerida allaha u naxariistay saygeedii hore oo lagu magacaabi jiray xasan cabdi isla markaana ahaa wiil dhalinyaro ah tagsiilana ka ahaa xaafadda Islii ayaa maanta nagu soo booqatay xarunta dhexe 5 TV iyadoo ka warbixisay qaabka uu u dhacay dilka allaha u naxariistay saygeedii hore ee lagu magacaabi jiray xasan cabdi iyo waliba arinta maxkamadeynta ee haatan ku socota Muna laftigeeda sheekadan ayaana ahna dhex martay Muna aad baan ku soo dhaweynayaa bal marka hore inooga sheekay sidii ay wax u dhaceen mahadsanideen Fosa Bayo maadaama ay soo dhaweyseen horta waxa la sheegayo aniga inta la sheegayo dhan xabsiga ku jiray oo mobile ka warqabinba wax banaanka ka dhaxdhacayo mobile ka warqabinba dad ay iimaanay waxay dhahayaan tii waatana oo ninkeeda dishay anigana waa la yaabay waqtigaas waxay ugu noqotay showga ugu noqotay familkeena markaa weydiiyo maxaa banaanka ka dhacayo qofku sheegay ma lahan koos way ka naxayaan aadiyaas marka soo baxay arkay media dhan waa ku jiray social media dhan waa la igeliyay anigana hore YouTube u lahaa oo muxuu ahaa waxay ila noqotay samcad xumo ila noqotay sida media la igeliyay oo ninkeyga dilal ahay horta ninka Allah u naxariisto anaga dhan samir Allah naga siiyo amiin waa ka xanuunsaday waa ilmaheyga aabahood ma fahanti mana dili lahayn qof oo aqligiisa tamaam yahayna kuma fikiraya hal second inuu caruurtaada aabahood aad dishay ma ku fikiraysid qof fikiraya ma lahan marka dilka xasan cabdi sidee ayuu u dhacay horta muxuu ahaa message waa tusinaya idinkana waa arkaysiin message adi wuxuu ii soo diray ku qanacsaneen ma fahantay reerkiisana awal ma u sheegi jiray wiilkan physical abuse igu haya u sheegi jiray wuxuu ila qaban jireen ma lahan reerkeenana always waxay ka shaqeyn jireen ilmaha waxa waaye aabahooda waaye iska daa hadduu nacaayo no problem iska daa adigana dhalinyaraad tahay kuma qanacsanid maanta waalidkaaga ina la caayo kuma qanacsanid aadiyaad marka xasan ilaaha u naxariisto message uu soo diri jiray wuu dhahay banaankaas hadaa ku arko waa ku dilayaa muxuu ahaa aabahaaga sidan waaye kaas waa adi message falxun kuma tusi kari adi hadaa ku tuso wallaahi oo hina ka imaanayso hooyadeedu caynaya adiga marka wiil waxaa jiro oo habeerteeda ee dhashaa jirto wiilkii u sheegay waxa ku dhacay wiilka arintaana ay haysato aabana wuxuu ka qabanaya ma ahan ma fahanti koos muxuu dhaqan anaga waxa leenahay Soomaali maanta adiga hadii lagu dhibo walaalahaaga u imaanaya wiilka soma meelana laga saara okay aniga wiilka walaalkayga u sheegtay waxa ku dhacay dhibkaana ay haysto wuxuu dhahay dhib ma lahan anaa la soo hadlaayo galabtii anaa maray la soo hadlaayo so I told him okay adiga wuu u tagay wuxuu dhahay muxuu ahaa xasan abu aniga waxa ahay muno walaalkeeda ahay gabadhaana dhibkaana ku heesaabo iska daa adiga xasan wuu booday wiilashii muxuu ahaa mindi u soo qaatay way kala carareen marka midka walaalada xagee ka soo qaatay mindida wuxuu ka soo qaatay nin waxa jiro oo geedaha gacmaha suubiyo magacayaasha lagu qoray waxaas oo design-ka u suubiyo bracelet marka agtiisa waxa lagu gadaa toore asagana geedihiisa sharxana jiro tooreyga meeshuu ka soo qaatay wiilkii daba bursaday wiilkana wuxuu ka soo qaatay mindida meesha fruitka lagu iibiyo ku soo qaatay aadi isna mid kale soo qaatay wiilkii xasana bursana Allah naxariistay wiilka kala bursana marka mindida suu u ordaayay meesha mindida asagana fruitka lagu jajaro uu ka soo qaatay mid kale iska waabiyo dhahay way fakatay waxayna ahayd qadar alle ahayd maanta ani ma jeclaysteen inuu horta dhinto ma jeclaysteen si kasta iskugu xumaadana ma jeclaysteen inay la dilo iska daayay aniga naftarkeyga ani ahaan ma jeclaysteen inay muxuu ahaa aruurteeda aabooda dilo wiilkana asaga maba ka ahaanba wiilkii naftarkiisa wuxuu qaaday showgu qaaday wiilkii wuxuu dhahay soo wacay baayatani taas dhacday wiilkii waa isku xumaanay mindi ii soo qaatay
anigana waxaa dhahay iska waabiya dhahay bintida way gashay marka sidaasuuna xasan ku tagay midida xasan markuu wiilka walaalka ay la soo aaday xagee kaga dhacday uu u dhintay wuxuu meeshan dhabarka meelahaas ugu dhuftay aadiya marka aniga meel badanaa wacay waxaa la dhahay xasan uu dhintay qaar waxay leeyihiin muu dhiman muu nool yahay adiga maalintii dhan shaki maalin ma ahayn waxay ahayd maqribadana waa ogtay meel ma u bixi kartidbo lockdown jiro bandooya jiray marka meelo badanaa wacay qaar waxay leeyihiin wuu dhintay qaar waxay leeyihiin wuu nool yahay marka adiga subaxii aniga ilaa subaxii horta ma seexanin ani xataa shooga qaaday soo subaxii waxay soo wacay wiil askariya soo wacay wuxuu dhahay xagee joogtaa waxaa ku dhahay gurigeyga meeshaas waaye adiga directionka siiyey uu i imaaday stationka tagnay markaas wuxuu dhahay sidee wax u dhaceen ninkaaga waa la dilay markaas waxaa ku dhahay inaa sabab u noqday horta u sheegay qoos hadaa qarin lahaa ani xataa qalbi madawaada ka qaadi lahaa mana jeclaystaa midaas so waa sheegay waxaa ku dhahay arinta sidaas u dhacday marka adiga almost 3 weeks meesha ku jiray waa xirneed xabsi waa xirnaa 3 weeks meesha ku jiray muxuu ahaa baaritaan igu socday anigana wiilka the same thing maalin kasta markuu i wareysto waa u sheegay the same thing waa u sheegay sidaas wax u dhaceen waana qadar alle horta ma fahamtay qadar allana wixii dhaceen maba soo celin kartidba hore le u socon kartaa aniga marka waxaa arkay markaa soo baxay social media meel kasta magacaygu yaalay waxaa dhahay horta wax haddii wax aa sabab u noqotay ilaahay le sabab kaaga dhigay dib ma u laaban kartid waxaa suubin kara kalina waxaa waaye horta youtube aa ka shaqayn jiray xinaa marin jiray waxaasna wuxuu u baahan tahay wejiga qof ee muxuu ula tagtid birita waxaa ku shaqaysanaysa haddaana ku shaqaysan karin ma ordaysaa no ma ordaysid waa inaa istaagtaa ka bilowdaa meeshaada horta sabab waa noqday yes I accept that ma fahantay anigana waa ka xumahay ma fahantay ilmahaygii ka dhinteen xanuunkaasna familkooda waa la qaybsanaya qasab waay marka intaasi sidaas u dhaceen